السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا an update إن شاء الله. There's another car park over there, cuz. You see that one next to the Pizza Hut? Yeah, right there. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو هذا برنامج كان waxaan ugu talagalnay inaan ku wacyigelino dhalinyarada Soomaaliyeed qaasatan kuwa ma aragtay niyada laga wada jibiyay sida anagoo kale kulliga niyada naga wada jibiyay wixii dhacay qalad bay ahayd qalbi dhagax xamxaar inay gacanta ku dhigtana qalad bay ahayd si qaldan gacantooda ku galay videogan share gareeya فيديو شير قرايه هلا شير قرايه everybody هلا gaarsiyo umada Soomaaliyeed siiba dhalinyarada please oo in baraya nin weyn ha ku taageerayna maamo weyn ha ku taageerayna ajuus ha ku taageerayna ajuusooyinkan ha ku taageerayna dhalinyarada ku taageeraya ajuusooyinkan iyo ajuusyaashan wayna dhibeen wayna wareereen maskaxda naga wada galeen wayna baabiyeen rajadii bay naga qaadeen wallahi billahi tallahi rajadii umada Soomaaliyeed bay burburiyeen meel kaga dhaceen marka maanta waxa idin la socodsiinaya damaca Itoobiya leeday Itoobiya damaca idin la socodsiinaya maanta ayaan hore wax xanaaqay nin walba Soomaaliyeed uu xanaaq damir leh dhiig loo xanaaqay qof walba oo maarka damirkiisa shaqeynaya madaxweynaha iyo khayr ma qaldameen way qaldameen qalad weyn bay ku dhex jiraan qaladkoodana Ilaahay iyo umada Soomaaliyeed baa ka cafin karta walaalkeen cidii doontaba ha dhiigto qof walba ha dhiigto niyadu inaga wada jabtay oo la murgoonayna waana lama aragtay xumaanayna waana ka xunnahay kulligeen waxaan idin tusinayaa madaxweynaha qaladaadka iyo qorshaha Itoobiya ee ka leedahay xaajiyo ladan insha Allah khayr baan ku sheegayaa walaal khayr baan idin soo tabanayaa maanta horta madaxweyne Farmaajo markuu xilka qabsaday wuxuu prime minister u magacaabay nin isaga ma aragtay uu naga yaqaano خير إسقى سياسة سوقي فرماجو سياسة لو شيء يعني نم باكينا فرماجو إنه خصوصا شيخ شريف باكيني فرماجو حوك يعني عبدولي قاس فرماجو حوك يعني خير Soomaaliya intuu yaro haystay heerku gaarsiyo wala wada garanaya waxa la gaalka dil gartiisana si farmaajo waxa ka hoos baxday xilalka muhiimka ah ee waaweynka ah wuxuu u dhiiban lahaa dad uu ka adag yahay dad ay isku mabda yihiin dad ay isku mowqif yihiin iyo xilalka waaweyn u dhiiban lahaa farmaajo waxa ka hoos baxday wadankan wixii soo galay iyo wixii ka baxay inuu isaga la socdo farmaajo waxa ka hoos baxday in uu qof walba muwaadin Soomaaliyeed sheegto iskana dhigdhigo ma garanaysaa wadani uu aamino bini aadanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku si umu sameeyeen qaarna afkooda waxay ka dhahayaan uurka kama jiro qaarna ficilkooda ka yaqyaqsoonaysa laakiin niyadoodu waa nadiif Itoobiya waxay damacsan tahay in ummadda Soomaaliyeed ee hog korido tusaalooyin afar tusaalan idin siinaya waxay ka damacsan tahay arrinkan isaga ah tusaalada ugu horeysa waxa weeye horta madaxweynaha aad ku rajo weyneedeen oo aad u sacbin jirteen oo aad u barooran jirteen amarkayga inuu qaadanayo uu qofka soo dhiibay ila eega waana been cad weeyaan wax been cad oo aan waxba ka jirin qalbiga saliimka ah ma gali karta carada waa meesheeda qofka markuu waxa arko ka xanaaqaya uu ka damqanaya uu ka hadlaya afkan uu furanaya laakiin runta markii loo daadago Itoobiya inay qalbi dhagax gacanta ku dhigto qorshahay kala hayd muxuu ahaa qalbi dhagax inay disho ma ahayn qorshaheeda dawladda Soomaaliya inay fashil ku keentay ahayd dawladda Soomaaliya oo meelay ka marto la'dahay inay fashil ku keentay ahayd tusaale hadaan idin soo qaato dawladda Farmaajo dawlooyinkii ka horreeyay dawladihii ka horreeyay oo dhan Egypt علاقات توصل لما يلنجرن واي Egypt وعدوغ Ethiopia سيدا Ethiopian كو آمنسان يهين فرماجو وحو كدغي Egypt اسوغو آنان عدلا كلا تشانين هوليهي سوصور لما يستي برنامجي ديسو كسور لما يستي دروهو ماش وتوغو كسور لما يستي وصول لابتي مركو صول لابتي Ethiopian وحي الله هذا شي مامل قبلية دادي فرماجو وحو غارسيي مامل قبلية دادا هير Ethiopia اينان آدي كرين قلمدوك Ethiopia ما آدي كرتو جبلان Ethiopia ما آدي كرتو maxay hayday
بطلان إثيوبيا ما آدي كرتو هرشبيل إثيوبيا ما آدي كرتو هرجيسان إثيوبيا ما آدي كرتو صابو كدارعي محانا لك فيو أرنت كلام إذن شيء إذا أنا وحاوي madaxweynaha markii uu dhiibay wuu ogaa consequences ka imaanay ninkan haduu dhiibay meesha ay gaari doonto wuu ogaa wuu la socday dib isugu laaba marka ma kula tahay farmaajo oo og oo caafimaadkiisa taam yahay oo miirkiisa joogo in uu muwaadin Soomaaliyeed intuu Soomaaliya ka dhoofiyo Itoobiya u gacan geliyo shalayna ninkii Itoobiya dhahayay wadankan waxba kama tihid سفارة وحكي بدنا كمية لان كرتان influencing ما سوق لي كرتان سياسة قبره ودن كان سكبح قبرنا ودن كيسوس كجموت ها يعني مسكح هذا ولا قش قيسية ولا فكرة هاوش ماشي أسعة على فكرة صومالي حدانا هنا محانا لجدبون صومالي حدانا هنا وحانا لجدبون خلط يصحبة وإنا كنت هاجرنا دولة صومالي هذا ماشي جوكت خلط يصح واي أفيرسو أم حارضة خلط يصح ويسكت هاجران عربتا خلط يصح ويسكت هاجران سعودي جوها وحنا رقبتين تكسر رجي قدر أو عرب إسليهن أو ولاليهن وحي كسر رجي سعودي جوها لكن شعبك سعودي جوها محيس سمايان ويكت هاجران دولة دودي كت هاجران يدو قلدنا وجدان إني قلدنا تحية كسي هاجران أنك كمل ليدنا أيجا مرك فرماجة هدو ما أنت جد نجلي وكذا بقلنا هدو نور لما يستروا وقوة باب أين ماشن حتى قلنا هاي ما قلدموا إلهي سبحانه وتعالى أمبانا قلدمين بني آدم قلدوا وقدعا مدحوينها إنه أوجين وعضاطي consultation بدنا للسمية research بدنا للسمية ضد بدنا أقوى هنا لا تشري وحبنا بالله وضح الله إثيوبيا لا أمر بيقول لسان يسام كو وحكوا لسان هذا وحكوا لسان دونتا قلبي نجح أو عن توضع قلي كو حكوا لك جوليسان دونتا فرماجي خير الدولة دي سولا كلا درو دولة مركز إثيوبيا وحكور استاجي كرنا أو كلية إني بقول جوليساتو بقول إني إثيوبيا جوليساتو حكوا حرنتها فرماجي خير ولا قد بقاته أنت سكجا حرنتي إثيوبيا مركز بكنتون ويجوليساتو كنتون كهنا وقعتو مدحوينها خالد يصحبة شلينا أنيجو أهنك فرماجي تغيري oo u kacay oo umadu maaragtay u wacyi gelinay oo dhalinyarada u soo jeedinay oo wadankan horumarkiisa iyo waxa kala shaqeynay shalay daraadna waxa ahayd ninkii ka soo horjeeday anigu ahaa ani waxba lama gambado apologetic ma ihi raali gelinna kama bixiyo waxba mana raali geliyo qof bini aadana maskaxdan wixii ka soo baxay idin la wadaaga horena oo idin kugu sheegay maskaxdan markay fikirto wixii ka soo baxo yaa idin la qaybsadaa hadda maanta Itoobiya وهرجلنا الريوين كصوماليا كلا ده أو دولة إن يكون كعس الشعب كصوماليا إثيوبيا بفائدة صوماليا واحد فائدة وجرته ما جرته nothing صوماليا فائدة واحد وجرته إن خير رأي فرماجة بوس كلا قاضو بربر كي صوماليا 91 كي بدي بلوغ ولا ونيا صوماليا إنه وحلالو بيساش شيء وحبا يطلع من مركز لين يروي فهمه ما أهان إنا ما ركتي وح أنا مسكحة كسب حكري إذا لقبسه مسكحة وحي كسب حاولي لسي تشتا وسي إيجا أو هوس وسي دادجا أو حكي ما أنكري عقبتها لسي تشتا وحقيسو بحضي حدا ما أنت مدحوينها بورنو أو رئيس الوزراء بورنو يا كفي عنو نوديارس ضد ما نوهيسا كوا أيه كدم من الآمين كرا سؤالين بدن بد سويدين إن شاء الله أنا سويد سيد بخوفي عنه وحو قبطي مفيريا وحو قبطي فيريا إن إثيوبيا ويهركشي أرنكن إسقى رك سومالي بقدم بي رك إن أدير ردي بديبي إن أدير ردي وأنا مقعاش ولا هالك إن أكسو قد بيما أنت أنا مناسب هين أو إسكدر وحين قنا سعد مركز إن قفت تارجت قرياني أنا جنا حلي قبرت إن قفت تارجت قرياني قلب الدجح واحد ديبي وإن أدير وإن أبتياش وإن أدير ردي ويان إن أدير ردي بديبي إسقى كله لو قبيل كسو طجا قبيل صومالي لما لو ديبي دولة بريتة كسو دادجا كسو دادجا هوس وسو دادجا هوس كوي إسقى لا شيء بديبي كوي إسقى لا شيء نجح حاجة بديبي صومالي وإسقى حتى فرنت مركز الله شيء مركز الدولة الدنيا أنا نحب اللي قصصين صومالي بدن بقصصتي أنا جا كم إذا وح قصصي أنا جا كم إذا وح قحي أنا جا كم إذا وح قعي أو الحلك اللي قاعد وأولين يبا ومد الصومالي ده هي لنا وحى لكن ده إذا كان أنا فكرتان بقى
oo dhahdaan war muhaayo wala isla taliya bini'aadamka wala la taliya inaad dhahdaan war muhaayo haddii kan laga qaado yaa loo dhiibaya jawaab uma haynin marka haddaan idin weydiinaya haddii farmaajo khayr laga dhiibo yaa loo dhiibaya marka yaa inoo diyaarsan oo loo dhiibaya oo la aamini karo kuwan dhaama kuwan wax dhaama malaha kuwan hadda jooga farmaajo khayr wax dhaan aniga ma difaacayo difaacitaan igama ahan wallahi oo billaah oo tallahi difaaciga ma ahane halkaas sidaa ku jira qalad iyo sax inaynu ku daba istaagno oo aynu ku daba fariisano oo aan mar dambe ku fududaanin farmaajana la talino shacabkana uu dhageysto shacabka waa inuu dhageysto waxaan hadda markaas sii daba galo fiiriyo eegay oo kuwa dawladda naftarkeeda kala hadlaysa dawladda naftarkeeda khayr dawladdiisa naftarkeeda kala hadlaysa mid warbu ku sheegay mid kale warbu ku sheegay mid aamina garan waay oo ku dhaxwareer dawladdiisa dhaxdeeda yaa qabiil u kala fadhiso wali mid kale farmaajo in la eedeeyo waa qalad farmaajo in la eedeeyo waa qalad farmaajo wuxuu ka nasan kari la yahay maamul goboleed Itoobiya markuu iska celin lahaa oo xiniyihiisa la soo bixi lahaa maamul goboleedyada u kala ordayay Itoobiya hadduu maanta farmaajo xiriirka u jaro galmudug uma jarayso oo Puntland uma jarayso oo Jubbaland uma jarayso oo Hargeysa uma jarayso dawladda federal government-ga markay xiriirka u jartay dawladda Itoobiya ku kala orday u naageenay u nacamleynay halkuu aadaya marka waa farmaajana waa geesi kale oo garab waayay isagana waa geesi kale oo garab waayay Itoobiya inta kala ordayna Soomaaliya oo systemkan 4.5 ka farmaajo sanka laga gelinayo ma eedeyn karno wallah we can't blame him muhaayo farmaajo khayr dawladdiisa inay ninka dhiibaan ma ku saxan yihiin maya ma ku saxna muslim iyo galti loo sheegay ma qaadanayaan laakiin inaa burburino dawladooda waa ku qaldannahay 91kii wixii dhacay baa dana dib u dhacay plan B inaa haysataan way arwa kaas hal nin oo maanta aanan qabyaalad ku jirin ha ii sheego farmaajo khayr hayeen ku bedelnaa والله يين كو بدلنا فرماجي خير امدي Soomaaliyeed way dhiibeen waad aragtaan yaa lagu bedeli karaa no one ma kaligiiba dhiibay wadankan okay hadii saa loo dhigo wadankan Soomaaliya waxa ka dhacay oo dhan ma farmaajo oo kaliya mas'uul ka ah farmaajo waa madaxweyne ma ahan prime minister ma ahan wasiirkii difaaca ma ahan wasiirkii socdaalka ma ahan elboorka kama shaqeey waa hal shakhsi weeyaan hal jagoona haya boqol jago isku ma hayo خير واسيدو كلا وبرايم مينستر ما أهن وزير دفاع ما أهن وزير سعودة ما أهن وزير كعشان ديك وحبا ما هل كيس بوسو إساقنا حيستا وحول بالدورة دي ماشي كل مستمر كم فرماجة خورت الله صارية نو إساقنا مد بكوس بحذي مرك حكوس بحذي وش هذا وحلو ديبتا خف حدو كقاعدين كرت تذكر وماشي صوّد الطبي وماشي وضع كياني وأنا كنترول لهين oo maamul goboleedyadii aanu system u sameeyno ninkii mar dambe Itoobiya la hadlo dawlad ahaan u la hadlo xeerka baa qabanaya oo qabaa'ilada Soomaaliyeed isku soo dhaweynayno oo niman yahow hadii la rabo in cadaalad laga wada shaqeeyo inuu ka baxno systemka qabyaaladda oo u daadagno systemkii caadiga ahaa arka niman yahow qofkii dhihi lahaa iyo qofkii wax xun sheegi lahaa iyo qofkii dhihi lahaa muhaaniyadiisa uu bedelay iyo niyadeeda hal mar baa bedelaa xalka meesha ku jiro marka arko waa bedelaa أنت أنا وإلى فول حماتي أنا سي أولولايو ودتك كوسي كعيو ودها ها قائمين وي ويكاتجان ودك هنا بربر بوقلي ضد بدن بكوسي دنبيجا وحوات كلاده دولة هدات أفكار كبر بوريسيت وحي كدم بين دولة الآن كدعضو 20 سنة حد دم ما أتكيسن كرنا تضيع 20 سنة والد كان ما ضلني واجي دولة الصومالي بربرس إلا حد لو قد حجار عالمك اكسدو قروح بدن يا سيدو u egyahay fiiri dawladan aan la joogno markay qalad gasho qaladkooda isku support gareeyaan nin cadaana eri oo dhahay baan idin la share gareynaya maanta dhageysta wallahi wuxuu igu dhahay the difference between the African people and the white people is this hadda ka hor nin Arab baa dhahay isagana farqiga u dhaxeeya nin madow iyo nin cad waxa weeye ninka madow ee successful ka ah ee nolosha heer sare ka gaaray sida mucaaradayna oo ula dagaalamayno waxa la dagaalanaa ilaa uu kor noqdo loser ilaa uu waxba ka qabsan waayo cadaankana maxay sameeyaan keeda doqonka ah ee nerdka ah ee maskaxda lagaga jiro ee aanan waxba qabsan karin oo daciifka ah oo handicap oo disable ka ah siday u taageerayaan ilaa nin dhaafay uu ka noqdo taageera
وكودي دقن هذا أجو وأنا وحبق بسكر سيد أتاجريان نين ركبوا نقطة ملبوس كسو صارا أو أفريقيا سومالي كودي ميل سر تاجنا سيد الله معارضة الله عاني الله بهدلي الله كرباشيو إلا ونلا شكر يكون وضع وأنا حاسنيو وأنا عقل حمو وأنا ضمير حمو walaalkeen sinna kuma iloobi doono walaalkeen gacan cadowba ku jira walaalkeen walaalihii baa dhiibay isaga la dhashay baa dhiibay kuwii isaga la dhashay Soomaaliya garta fahma oo in lafna wiligeed baa la gadgadi jiray wiligeed baa la gadan jiray maamul goboleed Soomaaliya ku yaala aan nin oo in laga dhoofin ma jiro xuquuqadoodii baa ina haysata dhibaatada ka galnay baa ina haysata ha aaminina marka waxyaabaha qaar la isla dhaxmaraya iyo hebelo baa dhiibay galmudug baana dhiibin farmaajaana dhiibin maamul goboleed kalena dhiibin balaayo baas aan aqoonin baa dhiibtay balaayo baas baa dhiibtay aan aqoonin dawladeena ha burburinina dawladana dhaleecaynta iyo dhaliisha badan ka daaya sax iyo khalad maanta wixii ka dambeeya anigu waan ku taageeraya wallahi markay saxan tahayna sax markay qaldan tahayna khalad laakiin khalad iyo sax Ethiopia jaanis ma siinayo maanta waxaan diidanay amxaaro inaan jaanis siiyo maanta waxaan diidanay Tigray inaan jaanis siiyo maanta waxaan diidanay calooshiis u shaqeysta inaan jaanis siiyo inta waan diidanay qof waliba muslim ah oo yaqaano daawanayo oo ama live yaqaano saaxiibada igu dhow ahna way yaqaanaan arrinkan qalbi dhagax inaa ka soo horjeedo qalbi dhagax waa ka soo horjeeda in la dhiibo ka soo horjeeda in Soomaali in la gato waxa kale oo ka soo horjeeda iyadana Ethiopia riyadeedii inay rumoodo Ethiopia nightmare-keeda waa Soomaaliya ninkaan ogeyn oo hadda ku bishaarayso Ethiopia is a nightmare ka Soomaaliya waa Ethiopia adduunka Ethiopia Soomaaliya waxay ka nacbantay masaarna Soomaalida bay isku dareysaa Soomaalida bay ka dhaadhicinaysaa adigna Soomaali Ethiopian baatay kaan waa Soomaali caadi ah waa cadowgaaga waa kii shalay ku soo dhiibay xabadahan qaado oo iska celi oo garaaca orod iska celiyo maartay ku dul Ethiopia waxay isku dayaysaa Soomaaliyo israacda Ethiopia aad nagama qaadan karto Soomaaliyo israacdo walaalaha inoo laf duurka kuma jiri lahayn Soomaaliyo israacdo Ethiopia dhul Soomaaliyeed ma haysan lahayn Kenya dhul Soomaaliyeed ma haysan lahayn laakiin markii brainwash nagu sameeyay oo qaar annaga naga tirsan oo Soomaali ah ay ismoodaan inay yihiin Ethiopian qaar kale annaga naga tirsan oo Soomaalina ay ismoodaan inay yihiin Kenyaati qaarkii annaga noo soo haray Ilaahay noo soo diray ee ka hoos baxdayna aburino maanta oo burbur iyo dayac iyo maaragtay wadan la'aan iyo dawlad la'aan u sii dhacno it's not a good move wiliga Allah xaqaha ka gambanin maskaxdaada inaad bedeshid adigoo xaqqa iyo maslaxadda fiirinayaan ha ka xishoonin wax laga xishoodo ma oo lagu faana ninka ragga waa ninka maskaxdiisa tuujiya waa ninka ummadda Soomaaliyeed muslimka u damqanayo u soo gudbinayo waxyaabaha waaqica markaa taagan weeyaan Soomaaliya qarxi baa ka yaraaday Soomaaliya dhibaatadii baa ka yaraatay siyaasadii caalamka la jaan qaadi rabtaa wadamo Ethiopia ee naga hortaagneed Ethiopia wallahi oo billahi oo tallahi article ay qortay ninkii akhriyay uu akhriyay ninkaan akhrinin de waa article u qalma in waqti la geliyo hal akhriyo Ethiopia from 1991 ilaa iyo hadda caalamka waxay ka dhaadhicinaysaa dadka Soomaaliyeed waa dad aan waxba qabsan karin waa dad aan meelna gaari karin waa dad u baahan siyaasadda Soomaaliya in lagala tashto Ethiopia caalamkii bay ka dhaadhicinaysaa Ethiopia siyaasad walba aad Soomaaliya ka leedihiin waa ina Ethiopia u soo martaan caalamkana wuu ku adeecay caalamka ma waxa iskaga celi karnaa maamul goboleed caalamka ma waxa iskaga celi karnaa reer hebel baana mase caalamka waxa iskaga celin karnaa inaan isku duubnaano oo hal jiha intaan u jeesano dhahna caalamo maxaad Soomaaliya ka damacsantay annaga hadda u soo baxnay annaga dhalinyaradeedii annaga maskaxdeena ku fikirnay wadankeena u talinay Ilaahay ka sukoobe caalamka annaga nala dhiil gareeyo oo amxaaradan aad la dhiil gareeynaysan arrimaha Soomaaliya ka daayay qofkii Soomaaliya siyaasadeed kale dana siyaasadeed kale waa inuu Soomaaliya u soo maraa qofkii Soomaaliya arrinka ka xiranta inuu Soomaaliya u soo maraa ma ahan in Ethiopia loo soo maro midda kale Soomaalida maanta waxa u bayaaminaya oo iftiiminaya Ethiopia Soomaaliya kaliya ma haysato Djibouti Ethiopia lagaga taliyaa Soomaaliya Ethiopia lagaga taliyaa jigjigo waaba Soomaali meesha lagu soo shirqoolo ma aragtay shirqoolka Soomaaliya laga soo mareego waaba meeshaaba iyadoo Ethiopia ka cabsanayso reer jigjiga intay walaalahood Muqdisho gartaan oo ay isku wada duubmaan hal meel ka soo wada jeestaan dhulka ogaadeeniyo waa laga xoreyn lahaa laakiin Ethiopia ma ogola dadka meesha degay waxay ka dhaadhicinaysaa xuquuqdeena waxay ku jirtaa annaga naga mid ahaada
annaga naga tirsanaaday idinkoo sheegtay Ethiopian sharaftiina sidaa bay ku jirtaa Ethiopia ka dhaadhicinaysaa Ethiopia sidaa bay ka dhaadhicinaysaa ummadda xagga degan ummadii kale meeshan deganaydna dawladii u timaadaba Ilaahay baa ma aragtay ku diray oo shaydaan baa ku diray Ilaahay yana dhihin astaghfirullah shaydaan baa ku diray dawladdu walba timaada qalad yar bay galaysaa buunka lagu wada yeerinaya calooshiis u shaqaysta meesha ka soo baxaya balaayo baas oo meelaha ka soo boodaysa dadka qaar oo si cadaalad uga xanaaqay arrinkan way jiraan ha ka soo jeedin togdheer ha ka soo jeedin burco ha ka soo jeedin hargeyso ha ka soo jeedin boorama ha ka soo jeedin Jubbaland ha ka soo jeedin Muqdisho dhiibista ninka waa laga wada xumaaday laakiin dawladeena inaa burburino markaan ku dhawaaqay oo ayaan hore cajalka soo duubay korkayga hadii la saro dhiig kama soo daadan karin maskaxdeedana zaa'id ugu maana fikirino xanaaqi bay iga soo tanbadiyay Soomaaliya runtaas ku sheegno marka Soomaaliya runtaas ku sheegno Ethiopia Djibouti uma talisay waxa huuhaa iyo dhaxay sheekad ku jirtaan Soomaali wadan Soomaaliya xura wallahi inuusan jirin oo billahi inuusan jirin oo tallahi inuusan jirin marka xartan ka dhaadhicinaysan Djibouti ha Ethiopia u talisay Ethiopia ka shidaal qaadataa Ismaaciil Umar Geelle Ethiopia buu ka shidaal qaataa waxaan Ethiopia ogeyn kuma dhaqaaqi karo kuma hadli karo marna waxa lagu soo dirayaa qoladii Ethiopia ka gooday magaceeda muxuu ahaa casmarada ganeed magaceeda muxuu ahaa marna kuwa baa lagu soo diray marna waa laga celinayaa meelna Faransiis baa iska haysta meelna Amxaara iska haysata Amxaarada markay soo gadanaysay maraakiibta badda Djibouti ba ku tashaneysay waagii Soomaaliya dawladda ahayd annaka ka sii hortaagnay difaaci jirnay Djibouti dhiigeen u soo hurnay lacagteena ku bixinay maskaxdeena aqligeena ku bixinay heerkay maanta Djibouti taagan tahayna Soomaaliya baa soo gaarsiisay wallahi inayna iyaga isgaarsiinin runta isku sheega reality u daadaga reality ga loo daadago Muqdisho maanta waxay la burbursan tahay saa ugu egtay midnimo Soomaaliyeed bay raadinaysa waligeedba hooyadii Soomaaliya weeyaan taariikhda kama dhicin Muqdisho in laga dhoofiyo muwaadin Soomaaliyeed never in history waligeed ma dhicin waa markii ugu horeysay way dabinkanna dad Soomaaliyeed baa ka dambeeyay dad Soomaaliyeed nugu af ah nugu luqad ah nugu diinta haystaan garan diinta haystaan Ilaahay baa taa ku shaqay aniga lama joogo mana aqaan igu ashahaadanayaan waligeey ma arag laakiin waxay aaminsan yihiin ba aaminsanaadeen waxaan ogay waa igu dad waa igu Soomaali waa igu ab iyo isr waa igu sinji madaxweyne Soomaaliya muxuu Ethiopia la ficiltama maamul goboleedyadii ba u kala dhuumanayay sidii Ethiopia ma idin qabta inta maamul goboleedyada Soomaaliya ka tirsan ma Ethiopia naag u tihiin mani la qabaa ma saddex ba idin geysay ma gorgorad baan liigliyay maxaa Ethiopia u kala cararsan madaxweyne ma u kala carartaan hadda wakaas laba maamul goboleed inta is dagaalaan maamul goboleed kamid ah Ethiopia aadan ma dhici karto ugu kala ordayaan marka farmaajo wuxuu noqonayaa dherigii labada dhinac ka gubtay halkan Soomaaliya baa kaga dhigan halkan Amxaara kaga dhigan halkuu u fakan marka halkuu aad Soomaaliya xaway kulligeen wada fududnahay taabeen ma ahan ana idinku ugu horeeya waxyaabaha qaar oo jirkayga diida jiro marka ka soo hadlo oo ama aragtay umad u bayaamiyo dhalinyarada u bayaamiyo marka hadana fikiro oo maskaxdeeda dib ugu laabto oo aafiriyo waxa ka dhalan kara cawaaqib xumada ka dhalan karta farmaajo haduu maanta meeshan ka tago khayrana meeshan ka tago cid kale la aamini karana ayna jirin dhibaato weyn baynu galeynaa wallahi dhibaato weyn baynu galeynaa cadowga dhan baa inaga faa'iideysanaya Soomaaliya hal cadow ma laha 2 milyan ayaga isku cadow ah Soomaali baa isku cadow ah cadowga wuxuu rabayna waka wayna maanta ku soconnaa burburkii baynu cagta saarnay burburkii Soomaaliya hadduu bilowday 2 mid baa la soo galaya Soomaaliya marka in cadowga laga xanaajiyo oo ma aragtay niyada laga jibiyo oo madaxweynaheena asagoo qaldan ay dhahno yes farmaajada ku hayno khayraha ku hayno Ethiopia quusato dhahdo ummadda Soomaaliyeed way israacday afartan xabbe agtaada joogto bal niyada ka sii ma aragtay gumayso kuwaana waynu u tageynaa burburkii Soomaaliya wuxuu ka bilaawday 1977 bay ahayd 1977 yaa loo dagaalamayo la xoreynay bal maskaxdeena dib ugu laabto abaalka lama iloobo abaalka waa la xasuustaa Soomaaliya waxay maanta u burburtay Soomaali kale iyadoo xorriyadooda raadinayso weeyaan xorriyadda Soomaali iyadoo raadinaysa iyo u burburtay Soomaaliya haddii aynan meelaha aadi lahayn ama Ethiopia ku duuli lahayn ama ummadda Soomaaliyeed lagumaada ku daawan lahayd ma burburi lahayn maanta waxaanu noqon lahayn New York maanta Dubai waxba nooma sheegi lahayn
دبي ولا سحري سي أحان لحد هدي الصومالي ما أنت إسنان لحد والله الصومالي هدي إسنان لحد سحري سي أحان لحد لكن أولك الصومالي إسكوك الشيء إن الإسكوشك شيء تايمون ونكسنو فرنت إن لو ده دقو ما مل قبل يدنا لقصة وضع كوبي فاهم لذنه فم اللي هو ده دقيني هنا إتوبي إسكدايا وعاب ضدك لما قص الكرتان ضدك لما كفتامي كرتان إتوبي حكت لجنينا نينك هذه نينكو قبا أو ناق نينك هذه سوجس قبر نينك هذه سوجس حكت لجنينا أو واحد لعب نينك هذه أولو أرديس نمباسو حروفية نينك هذه أولو أرديسا نمبا لعكس وضعي نينك هذه وشيء سأرك إتوبي دي سبحان الله حد وكل عرتان إثيوبيا ما تآمنتان دولتنا ما تآمنتان صومالي نمو ما تآمنتان إن لا دمنايو أو جبنيمو لقول أنتو شرف لقول أنتو ما تآمنتان أنتاس صومالي بعدين لحظة أرنكي هرس أرن صودف دولة هدا بربرنا إثيوبيا ويقول ستة نقول بصومالي إثيوبيا نحبنا وحكوا واجبة إنه فرماجتها غيره صح يا خلط بقى صح يا خلط بقى حداد إثيوبيا كسو هرجيد جريتان كذا حداد إثيوبيا آمن سنته إن نجوميستو حداد إثيوبيا آمن سنته الصومالية وحي كهرسن لا ضحي أو يكدق لا ضحي وإثيوبيا حداد آمن سنته إثيوبيا قرب هيستا يا قرب عالم كلهم بقربوا إثيوبيا هذا الكذا يا رماي ما تقنا أنك أرمينا عالم كمركي أشركت الصومالي ما هنضب بسل ودولة دماء بسل سياسة الصومالية أنا إيجا رئيستا وعالمكي oo ina soo fiiriyo oo arko galmudug Puntland ku dhagan Jubbaland oo koonfur galbeed ku dhagan Hargeysa oo Muqdisho ku dhagan markay arkaan maxaa dhacaya warka Itoobiya sheegaysa mar rumeynay ma samaano rumeynay Itoobiya waxay naga aaminsanay caalamku u sheegaysa caalamkii run way ma dhahnay oo mar rumeynay arrinka Itoobiya inagu sheegaysa waa ina beenino marka waa ina maamul goboleed walba lagu wada noolaado walaalnimo waa in lagu wada noolaado ehelnimo وإن لجوه النولاد ولا معركة إسلام نمو وإن نمو بالنفسديس وكهر مريا ودن كان والله ودن كانوا إثيوبيا كحروبا وميراكل إلهي سبحانه وتعالى هديد وخالصا إلا ويديستوا جنة وحي كسوهر وإثيوبيا والصومالي إلهي كقبط إثيوبيا كمركة أي دشان واللجوسو الدماء حالا بها عدو كلمة أنا صومالي حين عدو جاجا وصومالي عدو جاجا وحين عدو كاغا دغتay jigjigiyo qoy galbeed iyo kaaga dhigtay cadow marka hadaa maanta bahashan dawladda farmaajo aynu meesha ka saarno Itoobiya waxay sheegaysaa waa run caalamkana lama hadlayo dhig jalaq nooma siinayo madaxda niyada ka wada jabaysa idaacadii ma hor imaan karaan saxaafadii ma hor imaan karaan dadii wax u sheegaan ma hayaan marka insha Allah بإذن الله كريم أخياري والله حداد ست ربح أو إلهي درتي أتوقح معك حرق قلب الرجح إلهي أبري أو إلهي الدعاء أو أبنا بحر أو أسكوي إمالة لكن وحمان توحي كدم بين يدا ذا جلسة صح يا خلط بقى حنت غير سنة دولة الصومالية صح يا خلط بقى أما صح صناته أما قلدناته دولة الصومالية قربها أنت هاجني أنا أقول الرأي ما أنت وحي كدم بيا صح يا خلط ونكوتها غيريا صح يا خلط كمحاكم ذا هرت مرضم إني أدعي دون تقف صومالي إن اللي بيبو I don't believe أنا سنة قف ضمبو صوماليا إن أنتي صوماليا اللي قد بيبو أنحار الله عن قليو ما دعي دونتو absolutely واحد دعي دون مالها خلطات كدولة إيجش وإنه بيامين كرنا ولي بقلطات كإيكجلس ومضى صوماليا ودن ككون نور ها والله شيء كرا لكن ما أنت وحي كدم بيو صح يا خلط بقى كتابك إلهي انتين الله بنو سنة النبي عليه الصلاة والسلام الله بنو أي نكتها غيرنا انتين أجهلين لهن أمحارو وايو ما أنت فرماجي خير ومعارضي كرتا هذيك محافظ نوع نقون كرتا معارض نوع نقون كرتا لبضو بلقوم الديدنا حريات بعض لهذه لكن مركز إسقابتان صوماليا إيو ودن كالي أما فرماجي إيو أهورو كينياتا مال بها أما فرماجة إيو ما ركتي برايم مينستر كان إثيوبيا ومجي عشتا ما قانو من جستو ما لها مر والبو أدناني ولالكا صوماليا مر والبو أدناني ولالكي صوماليا فرماجة إيا نينك لهداي إسقبتان أجنبي مر والبو أجنبي كسو هرجيستا أجنبي هلقا سو وده هرجيستو أجنبي هلقا سو وده هرجيستو كلي والله أجنبي مر والبو هلقا سو هرجيستو
maanta waxaa arkaa laakiin aniga ugu soo horeeyay wallahi farmaajo waxa uga danaaniyay Ethiopia not in a direct way but si ani iga hoos baxda uga danaaniyay waxa uga danaaniyay mabdii Ethiopia ee lahayd yaanigi u ololeynay waa mucjiso Ethiopia iska daa siyaasiyiinta shacabkii bay kala qiyaamaysaa Ethiopia waxay rabtay oo kaliya in farmaajo lagu kaco aniga ugu horeeyay wax ku kaca Soomaali dhanba ugu horeysay wax ku kaca qof walba life markaas oo soo galay nin walba uu soo wada galay isagoo farmaajo dhahay waa ku taageersanaa hadda laakiin waxaad noqotay nin xun waan ku taageersanaa dawladda hadda laakiin meel daran ka bax inaga hoos baxday kulligeen way naga hoos baxday wallahi kulligeen way naga wada hoos baxday laakiin nin walba Soomaaliya ka hoos baxday loo qaban maayo waayo arrin xasaasi bay ahayd arrin xanuun badan bay ahayd arrin laga wada murgay bay ahayd arrin ilaa hadda la aamini la yahay bay ahayd marka khaladka laakiin in la iska qabto khaladkeena iska qabano yaana khalad isku sii daba raaca Soomaaliya wallahi khaladka la isku sii raaca ma fiicno iska qabano farmaajo iyo gabre kala xigsanina farmaajo soo xigsada laakiin farmaajo iyo madaxweyne maamul goboleed war adig maamul goboleedkaada iyo farmaajo markay isqabtaan farmaajo la jir maamul goboleed muxuu ku sheegay daaqada yar aad ku nooshay qolkaas hiriiska ah ha kullu go'ina ninkan waa president wayaan mandate noo haystaa oo 5 sano soo socota 6 bil oo kaliya ka tagtay bal inta ka dambaysa u duceey oo ilaahayna u baryo adigana wixii kugu soo aada geeskaada ka qabo maskaxdiina ka shaqaysiya kanna gaarsiiya cid walba dawladda ka soo horjeesta ku taageeray taab ku ha dhageysteen ama waxay rumeynayaan riyada Ethiopia ama madaxweynahoodii niyada u dhisayaano sax iyo khalad way garab istaagayaan inta waa inoo balano kulligeen qalbi dhagax waa ku soo haray qalbi dhagax horta waa la soo siideynaya qalbi dhagax jigjigu imaanaya qalbi dhagax military buu noqonaya qalbi dhagax Soomaali buu baabi'inaya annagana gaarsiinay kagamana xanaaqi karno kagamana xumin boqol asaga ka horeysay baa sida la soo sameeyay oo aragnay qorlugud wixii ka dhacay ayaa hore ummadda Soomaaliya lagu baabi'inay new police ka baabi'inayeen laynayeen sharci darrada ku dilayeen kuwa waxa ka beddelno walaalka markuu ku dhiibay carad darteed wax walba u sameynaysaa carada darteed xanaaqa ku haya xanaaq dartii wax walba u sameynaysaa laakiin asagana waxaan leeyahay ilaahay gacanta cadawga ha ka soo fujiyo ilaahay qalbadiisa ma bedelo ilaahay mabdiiisa ma bedelo ilaahay subhanahu wa ta'ala mabdiiisa ma bedelo ilaahay Soomaalinimadu ku dhimanay wiligiis mid loo dilo ilaahay ugu baryana ilaahay subhanahu wa ta'ala ka badbaadiyo sharqoolka amxaarada ay u soo maleegayaan oo ah in uu walaalihii Soomaaliyeed dib ugu soo laabto oo iyagii dib ugu maado ilaahay sharqoolka ha ka badbaadiyo sharqool bay amxaara la damacsantay amxaaro sharqool bay la damacsantay qalbi dhagax walaalkeen qalbi dhagaxow khalad baa lagu dhiibay khalad bay ahayd ummad badan baa kugu kacday ummad Soomaaliyeed baa meel kasta kaaga soo banaan baxday walaalaha Soomaaliyeed way ku jecel yihiin gacan cadow khalad baad ku gashay walaalaha yaana lagu dirin walaalaha intii lagu soo hubeeyo yaana lagu dirin oo han noqonin nin geesi haliyay ah Soomaali u soo wada baxday oo haddana meel xun isdhigay intay amxaara ka faa'iideysatay war amxaara sirteeda kama salgaaraysan amxaaro qaarada adduunka in ay Soomaaliya ka tirtirto geed gaaban iyo geed dhow bay u kortay geed gaaban iyo geed ilaahay baa nawata qoom uu ilaahay wato ma baabi'in karaan amxaaro taaba ka hoos baxsan annaka ilaahay baynu rumaysannahay reality markii loo dhaadhaco oo ummadda shacabka Soomaaliyeed ee aragto gumaysiga Ethiopia Soomaaliya uu ku hayana Soomaaliya Israacdoon bay kugu xirantay amxaaroy marka bay kugu xirantay marka bay kugu dhamaatay kuwan kale amxaarada ka daran ee la marin habaabiye ee laga dhaadhiciyay amxaaratihiin laga dhaadhiciyayna war wax idinka liitaa ma jiraan war damiir ma lihidin war dad ma tihiin war bini aadan ma tihiin war xayaaniinta idinka sharaf badan war wallahi billahi eeyaha idinka sharaf badan in la saaxiibo adigoo Soomaaliya ilaahay Soomaali ka dhigay sidee baa lagaaga dhaadhiciyay amxaar baatay sidee lagaaga dhiciyay damiir ma lihid miya aqli wax miisaan ma lihid miya damiir ma lihid miya kuwan maamul goboleedyada Ethiopia u kala orday damiirka ilaahay ha idinka qaada damiirkiina meey markaad nin asaaga oo facaya aad u ordaysid oo aad kala tashanaysid arrimaha wadankaaga damiirka halkuu ka aaday waa nin facaya hadda ogow asagana wadankiisa kaalama tashto kaalama hadlo wadankiisa afaaraha qusaya adigana rufyaan baatay jaasuus gawaad ah
oo sirta Soomaaliya sa u kala dhiibay u kala bixinay u kala rusheynay amxaar u kala ordayaan amxaar way isnaqaanaan laakiin amxaaradana adigoo kale adduunka ugu nacabtay sirti walaalkii nin bixiyay sir amxaar miyuu heenaya isagana ma haynayaan sirta walaalkii nin bixiyay caddaankeenu la joogno ku quus qaata caddaankeenu la joogno ninka ka daba nacamleeya ee dhuunta ka gala ee u rufiyaama ee u jaasuusa ee aanan xushmaynin ethnicity-giisa iyo dadnimadiisa iyo jiritaankiisa adduunka kaabay ugu nacabiin rufiyaan nothing else but agtooda rufiyaan baa ka tay gunno yar baad ku shaqayn 200 baa lagu siin awood yar oo peen oo aadan lahayn baa lagu siin qoryaal lagu soo dejino lagu leeyahay ummadda Soomaaliyeed ku gumaada inta baad sharaf moodaa sharaf ma tihiin sharaf ma lihiin wallahi laakiin bal intaad isku laabataan markaad hurdaan habeenkii isweydiiya xayaatadeed ku nooshay nin kale ficiisa u rufiyaamaya dalkiisii hooyo ka rufiyaamaya jahannamo ilaahay haydin kugu bishaaray kulligiin inta Soomaali u rufiyaantay amxaaro oo maamul goboleedkan iyo balaayadan baas hoosta ka riixaysa jahannamo ilaahay ha ku bishaaray ummadii bay rogeen ummadii bay waaleen dulli bay ka dhigeen ummadii Soomaaliyeed bay dulli ka dhigeen amxaarada waddankan joogta lama qosli karo lama fariisan karo dhalinyaradii Soomaaliyeed gumbe ka wada dhigeen way wada gumeeyeen nin gumeed bay naga wada dhigeen kulligeen qaar baa aaminsan ba amxaarada inay walaalo yihiin Etoobiyaanka walaalaha naga ku haya 24 saac halkeed walaal ka tii ma saasa walaal lagu noqdaa saas walaal lagu ma noqdo saas walaal lagu ma noqdo wallada amxaaro walaal la noqon manga kale jirin baatay maankaada inta ku gaarsiiyay laakiin ina walaalkaana ka carartaan amxaaran dhaxdaan walaaladana amxaaro walaaladana Etoobiya bal isku laabta oo damiirkiina weydiiya oo dadnimadiina weydiiya oo ismiisaama oo aqligiina ka shaqaysiiya oo heerka taagantay manzilada taagantay isweydii dib yar maanta markuu kugu dhaco dadka kugu damqanaya waa Soomaali ma ahna amxaaro wax yar markay ku soo wajahan abaar yar ku soo wajahdo Soomaali ba ku soo damqata amxaaro kuma soo damqato adduunka inta ku nooshay illegally ba ku daba taagan illegal immigrants baatay maanta dhan border to border bad goynaysaa bal intaad yara fikirtaan oo aad wax yar maskaxdiina ka shaqaysiisaan illegalkan intaad ka baxdaan baasaboorkiina ma toos ugu dhooftaan tahriibtan iyo Yurubtan lagu wada dhamaanayo adiga isii gelinaya markaad amxaaro walaal ka dhigatid waddankaadii burbursan baasaboorkaadii aanu qiimo lahayn yaa ku aaminaya baasaboorkiina qiimo yeela dawladdiina daba istaaga ka baxa illegality-ga illegalkan lagu hayo illegal baatay meel Soomaali problemka ugu weyn ay haystaa waa meel walba waxay ku galaysaa bug iyo qardajeex bay ku galaysaa ma fahmayaan arnamayo dib isugu laabto ninka dambe amxaara walaal la ahay dhahana dameer ba walaalka ay tahay dameer baatay wallahi amnada shamtisay dameero kulli qofkii dambe afkiisa ka soo baxdo amxaar bayno walaalada naga Etoobiya naag hadee tahayna de naag ha gabar ma dhahay naag haabe u yeesantay naagtii ka maqla amxaarada walaalaha naga waa naag adduunkii soo nacay waa naag saaqidad ah waa naag saqajaan ah waa naag aanan xalaal ku dhalanin waa naag istubirad ah waa naag la nacay waa naag sanka laga wada qabsaday la wada dhahay weeyaan tii dambe laga maqla amxaara walaalaganada Etoobiya walaalaha naga kuwii sanka laga wada qabsanay wajiga laga candhuufay way kuwa candhuufta wajiga laga tufay candhuufteeda ka sharaf badan wali bille ragga dhahay Etoobiyaan baan nahay naka Soomaalida Etoobiyaan la dhahayo kampaan la dhahayo dameero nin dambo Soomaali sheeganay amxaaro walaalkeen dhah ama Etoobiyaan baan ay dhah dameer kala jirin baatay saaqid ah dulli kala jirin oo uraayatay wallah gaarsiya naxana qaan dhiigarka ku dhacay gaarsiya isaga ku soo dhiiran kara amxaar baan ay hadda dameer buu noqonayaa doon xaar ku soo dhiirin inuu yahay tii ku soo dhiirata aniga gabar oo Etoobiyaan baan iyadoo Soomaali ahna de sanka laga qabsaday ur badana ku isaala dhahayo way warnamayo Soomaalinimada waxaad ku tihiin Soomaalinimadiina u kaca dadnimadiina u kaca wadamadan aad ku soo galeysaan bugto waxa idinka xigta tano aad hag istaagtaan dawladdan Soomaaliya ag istaagtaan hal mabda wada yeelataan kiina saxana aad taageertaan iyo danta inagu wada jirtaa kulligan aniga iigu jirtaa adiga kugu jirtaa farmaajana waxay danta ugu jirtaa dadka ku hareereysanaya hareerihiisa taagan ee ummadan ma aragtay misleadingka ku sameynaya inuu dib uga laabto in uu meel walba muhiima wasiirka arrimaha gudaha waa muhiim wasiirka gaashaandhigga waa muhiim wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha waa muhiim wasiirka arrimaha dibadda waa muhiim
inta wasaaradooda ugu muhiimsan waa inuu u dhiibaa rag waxay sameeyaan oo mas'uuliyadiisa qaadan karo rag oo mas'uuliyadooda qaadi karo oo haday ay khalad sameeyaan uu dhihi karo yes khaladka aniga sameeyay waa inuu u wada dhiibtaa nin walba wasaarad haystaayo waa inuu dhahaa ninkan aniga meesha keenay aniga aaminsan wuxuu qalad u sameeyay aniga igala xisaabtamaya hadda waxa inoo cad dadka siyaasadda Soomaaliya ku jira qaarba u hanqal taagaya booska khayre iyo farmaajo annaka weeno dam maskaxda ilaahay wuxuu noo siiyay inaan ku fikirno qaar dawladda Soomaaliyeed ku dhex jira ee raba farmaajo in laga tirtiro buuga ama laga taqaado madaxtinimada jiro mudan madaxweyne indhahaada fur ummad adoo taagan la gadgadanayo waa ku sharaf darro ummad adigiyo taagan oo madaxweynihii wadanka oo madaxii meesha ugu sareysay ah in lagu horgadgata ummad Soomaaliyeed waa sharaf darro hurdada ka kac indhahaada fur geesahaada kuwan aad ka ilaalinaysa amxaarada kuwan ku hoos jooga amxaarada Soomaaliyeed kana ka daran kuwan ku hoos joogo yaa ka daran kuwan ku hoos joogo mudan madaxweyne ilgaar iskaga fiiri ha aaminin qofaad aaminsantay kaanso dawladdan adiga u madax bannaan khayrow indhahaada fur walaalkay weeye iyo isku qabiil baan nahay iyo in adeer baa dhashay iyo sheekada way soo dhamaatay hawiye isla nahay iyo waxa ka soo baxa daarood baa isla nahay iyo waxa ka soo baxa warniman yahow dawladda markaad sameysanaysaan tusaale ahaan ku soo qaata wixii ku dhacay Egypt محمد مرسي مركو قبصدي سيسي أو عندما ميل سركها يبغى أسي مقعابي كي وماشي سكودا يبغى آخر كأفجن بيه آخر كأديك وحكو أفجن بندونا مد أسود ويستو أمنتي والله بالله شيء كذا هلا قرا هلا كهيديو حكو أفجن بندونا أو جركات توردونا أو بهول غير كوجو توردونا كو أديك كوجو فيلا سوماليا كل جوجان وجينا بكاجا قصليان قداش هذا نطاوع بكادي جيان حبضو رصاص بيكوجو وضع ما فهم كرتيد لك فرماجو حاطي نينك Soomaaliya maanta ugu cadaawada badan baad milyan cadaawad baad leedahay saad madaxweyne ku noqotay no one believes qof aaminsan dad ba ilaa hadda shoog ku dhacay qaar ba sukor ku dhacday qaar ba dhiikar ku dhacay qaar ba kaayada cashan la adigoo sida ay taariikhda soo maray hadda maanta is ilaalin weysid oo ministerigaada u dhiiban weysid dad aad ka warqabtid oo aad taqaanido aad og tahay oo aad la xisaabtami kartid wallahi waa lagu yaaba tan waxba ma tan baa noqonaysa janno mid kuugu soo socoto farmaajo hadaadan indhaha kala qaadin oo aadan indhaha kala furin wallahi billahi tallahi tan baa janno noqon doonta meelay Soomaali ku dambeyseen wala isweydiin doona adigii khayr meelad ku dambeyseen wala isweydiin doona wallahi hurdada ka kaca umada Soomaaliyeed idin soo jeeda oo idin dhigan ugu shahay qalad uu dhici karaa dad badan baa idin ku soo qaldamay hadda idinkana qaladkiina khirta idaacada hor imaada sida wax u dhaceen u sheega qofka markii been lagu barto buu been sheega farmaajo kullee been kumaanu baranin runta ilaahay baa jecel ma qaldamana waa ilaahay u sheeg umada Soomaaliyeed marka Soomaaliyeed waxa inoo ballan ah inta caafimaad qabtaan ka hadlaya inta jirrana cuqdada heesa ee mingiska laga tumo ee qabiilka laga tumo lama hadlayo intiina kala dawladdiina through thick and thin garab istaaga amxaaraha uga heelinina amnigiina gacanta ku qabsada Soomaalinimadina gacanta ku qabsada amxaara la xisaabtama ha ka yeelina amxaara waa ina u muujinaa ina ka mideysanahay mabda'a dawladdeena wax allaale iyo waxay samayso ina la garab istaagsanay haddana xasku day ina dhowr qof u joogo because marka hadlayay sometimes you know maba akhriyaba waxaan soo qoray ragga qaar in la ficiltama ma fiicno in loo jawaabana ma fiicno in la hadlaana ma fiicno xawee in isaga batiisa meel u helila oo aanan nafsadiisa waxba u qaban karin oo waagu dhalanay ilaa haddu 25 jiro hooyadii ag fadhiyay oo aanan wiligii arkin dawlad iyo waxba arkin waxyaabaha ka hadlaya ma dareemi karo waxyaabaha ka hadlay wadan dawlad ka dhisan tahay jooga wadan nidaam iyo system kala degan yahay jooga macaanka dawladnimadan garanaya I know sida u macaantii dawladnimada hadal laha cunug hooyadii ag fadhiya asagoo 60 jir ah hooyadiisii ag fadhiya $100 iyo $200 loo soo diray clipkan maba qusayaba kuwa iyaga wax qabsan la maba qusayaba kuwa waxaynu la hadlaynaa garaadkooda iyo garaadkayga dii isku kabo horumar gaari karo meel fog la gaarsiin karo iyo gabar aqligeeda ku soo koobmay makeup ka la marsanaya iyo ajnabiga laga daba cararayo amxaarada
maxay ka garan karaan waxaan ka hadlayda nothing makeup ka marsanaysid iyo meesha xun ah taagantay iyo bahdilaada lagu bahdilayo iyo ajnabiga laga daba cararayo inta baan adina kugu ogay dadka damiirka leh ee Soomaalinimada jecel Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagu u danaanin doona intaynu nool nahayna waynu sheegaynaa ama maxaar isku kab ama ajnabi isku kab adiga ku taxalaade arka insha Allah Soomaali qabyaalada iska deeno qurunka iska deeno walaalahan maaragtay Soomaalida isku garab istaagno madaxda khalad iyo sax lagu wada taageero insha Allah dadka Soomaaliyeedna raga qaarna waxaan u leeyahay magaca raganimada ka wata shaqaysta wallahi shaqa sharaf leh wajiga Ilaahay shaqa sharaf leh 25 sano ka badan baa waalidka ku soo korinay waxaad u soo hanqal taagaysaa dibad iyo tahriib iyo dhiman doontida ma ogid lagu kufsan doona ma ogid balaayo baas kugu dhici doonta ma ogid dawladan iyo waxan laga hadlay adiga maba waqtiba uma haysid taadi baa halka ku taagan taadi baa qaadi kara laaday qadiyaan baa taagantay warqaadada bariiska hadii hooyada maanta dhimato ama aabaha dhinto ama dibad wax lagaga soo diri waayo wax dhimanaysa hadii gaajid u baqtiyaysa ninka ragga waa kii shaqaysta war shaqayso war meesha ka kac war meeshan qabyaalada la soo fadhinay war meeshan hooyada saxanka bariiska aad la cunaysid ma ka xishootid miya ma ka weynaatid miya ma ka kortaan miya war maxaa idin ku dhacay kan muu shaqeeyo lagu dhalay ilaa hadda soo taagantay lagu dhalay ilaa hadda waxba kugu ma faa'iidin hooyada maxay ku khasaare kugu qabtaa wax faa'iido ee kugu qabto maanta oo Ilaahay uuntay shaarka aad gashantay bay ku soo gadaysaa saabuuntay bay ku soo gadaysaa dawlad dhisanna faraha la soo galiyo dadkii wax ka talinayna qabiil bad ku war farmaajo waad dhali kartaa waana madaxweynihii wadanka anigana waad dhali kartaa ka aqli badanay laakiin taaba igu jirta gacan wiligeey ma horsan never in my life guri hooyadayna ma degani guri aabahayna ma degani independent intaqaana basic life kii ba sameyn laaday arkaas daarood iyo hawiye ku mashquulaysa shame on you daarood iyo hawiye kulay daarood iyo hawiye or daarood iyo hawiye this is 21st century saaxib 2017 ba lagu jiraa Mareykanna Donald Trump madaxweyne ka ah Soomaaliya waxa madaxweyne ka ah Maxamed Abdullaahi Farmaajo digid saaxib inta kale caafimaad qabto idin salaamay insha Allah barnaamijka loo kan ka xiiso badan oo inoo soo socda haduu Ilaahay nafti inoo wada daayo waxa weeye madaxdeena صح يا خلب قرب استاجن إن شاء الله ووذا ما ركتي ما سنتهن كل جين بإذن الله كريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلطان محمد فرح وقاقة هذا ولا الكي موجود ما أنتوا رنوح سوق رئيس هذا أركي أبو عداء thank you very much إن شاء الله ولا لو ومد سما أدين جيس كذا كوعي جلي وحوشك ما ركتي دولة دودينا كوكا عن وشك همي إثيوبيا إلا ده إننا جارن وشك عدو الصومالي همي جودي إننا جارن كذا دعية نقول بالصومالي وبرت إنترنت ككل ده أفكار فرق وشك ومد الصومالي ده وحي صحة وحي خالد إحنا إلهي سبحانه وتعالى حكاية عافية أنك قلنا إلهي سبحانه وتعالى قلت كنا جود عافية صومالي وهير جارتا إنه وضب الله إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.